marka waa hool oo diyaarsanahay waa runtii alxamdulillaah cid aanan dadkaas wada fahmi karin bulshada man u adeegteen heerkaana ma soo istaagteen marka aad idinka mahadnaqa guulay noo tahay maanta farxad gaar ah noo tahay si isbishal ah kulli naadiyada marka idin mahadnaqo kadibna si isbishal gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Boondheere waa dhigeena waa saaxiibka kuleeshka waa runtii nin aan dhigi karna kanoo kale u baahnaa inuu bulshada maanta u soo hor istaago teetal u qabto kuwa ka teetal sareeyo ka dhaqaale sareeyo meelo fiican ku jiro oo kuleeshka muxuu ahaa intuu ku yaala intaraasyadooda xafiisyada ugu jiro maanta ninkaas dhalinyarada ah ee isku howlaaya dhahay kuleeshadaas ma aragteen tiimba mar baray runtii waa dareemi karaa doorkoo leeyahay dareemi karaa wuxuu naga mudayahay dareemi karaa laakiin insha Allah xaqan wuu imaanaa waana guuleysanaynaa dalkan anaga iskale dadkiisa anaga waay horaa loo socdo soo dhawaada Soomaalinimadana deeqdo bismillaahir rahmaanir rahiim waxa salaamaya dhamaan dadka meesha jooga oo ugu horeeyay maamul Nuurto oo gacanta ku hayso gabdhaha agoonta Boondheere sidoo kale gudoomiye ku xigeenka adan bulshada saaxiibka Cabdixamiid iyo dhamaan naadiyaasha akhriska iyo qoraalka magacyada kala duwan wata balse magaalada Muqdisho wada jooga ama Soomaaliya dhan isku jirto waxaan kaga madcelinayaa naadiyaasha akhriska iyo qoraalka oo magacyo kala duwan ama hay'ado kala duwan ah siday u taageereen gabdhaha waalidka oo nahay ama walaalaha aan nahay agoonta ah iyo maama Nuurto oo ku hayso meeshan in wixii ay soo qoreen iyo wixii ay soo diyaariyeen dhalinyaradan ama ilmaha ay ugu faa'iideeyaan naadiga taasaan ku amaanaya sidoo kale maama Nuurto oo gacanta ku haysa xaruntan muddo badan ku haysay aydan sidoo kale in la madceli mudan hooyo in caruurteedii ay hayso hadana caruur maxaa la kuweyda ahayn balse aan waxba dhaamin kuweyda inay u gacan istaagto oo banaanka ay u istaagto itraana korinayo taasna waa ajir sidoo kale waxa ajir ah in caruur la koriyo ajir laakiin waxa ka sii ajir badan in caruur gabdhaha la koriyo gabdhaha way ka ajir badan yihiin sida la sheegay diiniina xataa marka wiilasha la korinayo because nabiga sallallahu alayhi wasallam gabar maamadii saddex gabar korisa ama gabdho korisa gabdhaas intifaacaan ama ay weynaadaan maamadaas waa qof jannada galayo ama faa'iido fiican shaqayste marka waxa ma dicilna maamada oo gabdhaha gacanta noogu haysa anagana waajib naga saaray hadaan dhalinyarada magaalada Muqdisho inta badan ka shaqeysa arrimaha samafalka ah haduu Ilaahay raadiyo gudoomiye Cabdixamiid iyo guud ahaan degmada Boondheere waa ku amaana sida geesinimada ay u garab istaagaan gabdhaha Boondheere oo xaruntan lagu hayo waxa la shaqo wanaagsan ay siin maamul ahaan sidoo kale naadiga akhriska oo tilaabo fiican sameeyay waxaan sugaa inay ku daysan doonaan dhalinyarada kale ee magaalada kuwa business ka ama ganacsiga ku haysta kuwa kale ururada dhalinyarada magaalada ka jira in ayagana doorkooda qof kasta waxa uu hayo ayuu bixiya maanta naadiga akhriska waxay bixiyeen waa wax hantida ay isla sheegeen oo ah buugaag iyo cilmi iyo aqoon inay u keeneen dhalinyaradan kuwa kale hantida haysta iyo kuwa kale wax walba ku saacidin ka dhalinyaradan gabdhaha ay agoonta waxaan ka codsanaynaa in ayagana wada fiican oo ay bilaabeen in naqdaan waa madcilina dhamaan maamulka degmada Cabdixamiid nagala joogo iyo maamul Nuurto iyo guud ahaanba dadka meesha joogo masantiin bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah awalan ilaahay baa mahad iska leh ilaahaygaasoo halkan annagoo nabad iyo caafimaad qabna isku keenay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibada baaqi ahaa maktabadda ama library-ga aan ballan qaaday kuleejada agoonta gabdhaha Boondheere ka soo jawaabay waxaan rabaa horta inaan awalan ayaga ilaahay ka soko aan u mahad celiyo saaxiibada garbahayga taagan ee naadiyaasha akhriska ka dhisan caasimadan magaalada Muqdisho oo saaxiibada aan daqiiqadii ila soo wadaagay igu dhiirageliyay in halkaan aan maktabad ka furo waxaan rabaa si gaar ah inaan uga mahad celiyo teamkaas saaxiibaday ah waxa kale oo nala joogo dhalinyaro badan oo ah dadka u ololeeya dadka agoonta garbahayga maanta waxaa taagan dhalinyaradaas oo runtii ii muujiyay dareen Soomaalinimo ii muujiyay hawsha aan u taaganahay inay ka jawaabaan waxaan rabaa inaan mar walba aan iraado dhalinyaradaas garbahayga taagan waxaa tihiin kuwii wadanka mustaqbalkoodii ahaa waxaa tihiin madaxdii maanta waxaa tihiin madaxdii berri runtii dalkan agoontan waxay u baahan yihiin mar walba garab istaag waxay u baahan yihiin iskaashi iyo isxilqaan in wax walba loogu qabto waxaan rabaa inaan iraado maama Nuurto maamada kuleejada ama maamulaha kuleejadan oo runtii dhabar adeeg badan u muujisay runtii mararka qaarkood riyadaadu marbay rumowdaa waxaan u maleynayaa in ciyaalkeedii soo korisay u barbaareen
tiri aniga maanta ilmahayga waan barbaariyay waxaan diyaar u ah inaan barbaariyo ilmaha Soomaaliyeed ee tabarta yar runtii waxaan dareemayaa inay aad u culus tahay qofka taas ku dhiirado bedelkeedana waxaan leeyahay ilaahay ka qeyrsiyo dhalinyarada saaxiibada ah ee mar walba u taagan inay u ololeeyaan dadka agoonta ama dadka tabaalaysan waxaan leeyahay faanola farakama qodna maktabadii maanta feeska koowaad ayaa noo bilaabmay buwaagtii noola keenay waa ka gudoonnay saaxiibada ka jawaabay baaqaygii ahaa in meeshaan wax loogu deeqo runtii qof kasta oo muwaadina oo dhalinyaro oo dareen wadaniyadeed ama dareen Soomaalinimo ay ku jirto waxaan leeyahay dhalinyaro u istaaga inaad caawisaan kuwa tabaalaysan kuwa u baahan maanta in la garab istaago waxaan aaminsanahay dhalinyarada maanta inay yihiin hogaamiyaashii wadanka waxaan ogahay in dhalinyaradan maanta fursada la siiyay 75% inay wadanka ka yihiin leaderska hogaamiya dawladan oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo maayarka magaalada Muqdisho gudoomiye Cumar Filish runtii waxay fursad siiyeen dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo yiraahdeen maanta waxaad istaayeen wadanka hogaamisaan marka dhalinyarada waxaan leeyahay waa inaan meesha aan joognaan ka muuqanaa waa inaan wax ku soo kordhin karnaa waa in badiilka berri meesha aan joogno waa in maktabad ka sarreeysan haweysan karnaa maktabada maanta aan joognan aan ku qurxin karnaa sidaan u gaarinayn maktabad meeshaas ka sarreeyso waxaan idin leeyahay mahadceed ka gaadho runtii faanola farakama qodnan ku celcelinaya kuleejadan waxay u baahan tahay garab istaag xoogan waxaa jira kuleejooyin badan oo u baahan in la caawiyo runtii waxaan dareensanahay aaminsanahay in maanta ay meeshan ku jiraan madaxdii wadanka hogaamin lahayd maanta hadaan u istaagin aanan taabagelin qorshaha aan danaynayno oo ah inaan ayaga garab istaagno waxaan rumaysanahay maanta qofkeena tabaalaysan qofkeena wax haysta qofka tabaalaysan haduu taageero inaan guuleysanayno wadankeena waxaan u rajeynayaa horumar magaaladan waxaan u rajeynayaa mustaqbal ifaaya degmadan waxaan u rajeynayaa guul iyo nabad salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynayaa cali Suudi Nageeye oo ah tiimka maanta halkan martida ku ama ku casuuman kana jawaabay baaqi aan soo jeediyay qayb kamida waxa nala jooga gudoomiyihii naadiga akhriska gobolka Banaadir waxa nala jooga gudoomiyihii hore naadiga akhriska gobolka Banaadir waxa nala jooga samafale Axmed Yuusuf Suleymaan sidoo kale saaxiibkii walaalkay Ibraahim Maxamed Xasan waxa nala jooga madaxa horumarinta dhalinyarada gobolka Banaadir maamada kuleejada waa la wada dhan yahay runtii hadal kuma soo koobi kara meeshaan magacyadooda ma sheegi karo dhalinyaradu waa badan tahay maanta feeski koowaad waaye waxaan rajeynayaa in madax badan oo aan arintan gaarsiinay sida ugu dhaqsiyaha badan nooga soo jawaabi doono biidnillaah bishaan dhamaadkeed waxaan rajeynayaa in kuleejadan maktabadeeda la daafuro hoolkii weynaayo dhismihiisa noo socdo la daafuro dhalinyarada ka soo qayb qaadato hoolkaas inay dhismaan waxaan leeyahay mahadceed ka gaarto waa idinkaga mahadcelinaya dhalinyarada meel kasta jooga inay isgarab istaagaan waa waajib muqadas ah intii soo garab istaagtay arinteedana ka dhawaajisay arrinkii aan soo jeediyo ah in kuleejana la garab istaago si degdeg uga soo jawaabto waxaan idin leeyahay ilaahay agtiisa khayr ilaahay idinkiisa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu